rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii runtii waqti badan geliyay barnaamijkaas u taabageli lahaa waxaan rabaa sidoo kale inaan hambali yiraahdo dhalinyaradii hablaha ahay ee barnaamijkan qabana tababarka ka faa'iideystay ee maanta shahaadada la guddoonsiiyey iyo sidoo kale dhalinyaradii wiilasha ahay ee barnaamijka nabadda ku la xiriiray oo aan qabanay ka faa'iideystay maantana shahaadada la guddoonsiiyey intaa kadib waxaan u malaynayaa barnaamijkan maanta bilowna ku saabsan yahay ujeedkiisu muxuu yahay maxaa looga leeyahay waxaan looga hadli doonaa su'aalahaas iyo inaan la xiriira waxaa ka hadlaya malaynayaa saaxiibka cabdirasaaq ma raba inaan kusii dheeraado laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo Soomaali baan nahay oo haddii wax la qabanayo fasiraad badan baa loo sameeyaa barnaamijkan aan qabanayno ujeedkiisu wuxuu yahay dalkaani saan la socona dhammaanteenba hoggaankiisa markaan ka hadlayno nooma dhisna institutionist qofka lagu soo diyaariyo adduunyada waxaa ka jira xisbiyo iyo hay'ado qofka soo diyaariya lagu soo tababaro muddo dheerna waayo aragnimo hoggaamineed soo yeesha la garan karo maanta waxaa la rabaa in la qabto cidda kusoo bixi karto tusaale ahaan dalka maanta aynu joogno haddii la yidhaha maanta doorasho dhacayso cid naga mid oo saadaalin karta yaa hoggaanka kusoo bixi kara ma jiraan sababtu waxay tahay institutionno soo diyaarsada dad oo la yaqaano oo runtii backup u noqon kara la dhihi kara hebel qualified u ah oo soo bixi karo la saadaalin kara ma jiraan sidaa darteed waxaa nagu badan in qof cusub marba uu yimaado qofkii markuu imaanayo meesha waxaa maskaxdiisa ka gooxaya expectation uu qabo oo isleeyahay institutionka tegiisa nooca weeye markii uu tago oo wax badan uu la kulmo waxaa laga yaabaa wuxuu filanaya wax ka duwan inuu la kulmo inuu soo u malaysanayo si ka duwan ku noqdaan challenge iyo fursad ay u yimaadaan haddana asigoo la qabsaday shaqadii oo hadda fahma baa laga qaadaa kumana soo noqdo waayo arrimadu kasbada marka asigana meel uu platform uu ku soo bandhigo aqoonyahanka Soomaaliyeed kula wadaago waddanka kama jiraan waxaa dhacaysa marka mar walba inaan ku jirno tijaabo iyo waxaanan garanaynin iyo waxa ka imaan doona qofku laftigiisa cabsi badan ka qabo waxaa isleeyahay marka barnaamijka noocaan oo maanta aanu bilownay wuxuu suurto gelinayaa dadka waayo arrimada kasbaday xilalka siyaasadeed soo qabtay hoggaaminta hay'adaha dowladda soo samaray iyo dadka aqoonyahanka Soomaaliyeed ama xilka maanta haya amba isla bixi baad qaban doontaan oo hamiga ku jiro meel ay ku wada kulmi karaan waayo aragmadii hoggaanka dadka soo qabtay lahaayeen ay ku soo fadhigi karaan lagala doodi karo dadku wax ka faa'iideysan karayaan ma ahan meel runtii system hore iyo mid jooga iyo mid imaan doona intaba opposition ku ah ama mucaarad ku ah wax looga sheegayo mana aha wax personal attack qof loogu sameynayo qofku markuu halkaan imaado wuxuu ka hadlayaa waxay tahay waayo aragnimadiisii iyo waxa maanta ay la tahay iyo talada uu bixi lahaa intaas waxaa u malaynayaa haddaan dhammaanteen si sax ah wada qaadano waxaa awoodi kara jawi lagu diyaarin karo hoggaanka biri imaanaya dalkaani iyo sida uu noqon lahaa adiga haddaad biri danaynaysa inaad dalkaani uun xil ka soo qabatid meel uun ka qabatid haddii dad kaaga horreeyey boosashanka aad maanta danaynaysa inaad qabatid ay kula wadaagaan waxa meesha ka jira iyo caqabadaha jira iyo qaabka loo xalin karo way kaaga sahlan tahay waa inaad runtii ka fahmi og tahay haddaan wax xog aadna ka helin waxaan rabaa mar labaad ma saddex inaan mahad celiyo runtii wasiir maxamed mukhtaaro topic maanta taagan dalkan u baahan yahay dad badan ka yeesho noo soo diyaariyey soona bandhigay waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaan ka wada faa'iidaysano aragtida wasiirku soo bandhigay kuna dhisno waddankan iyo si aan horumari lahayn mar labaad iyo mar saddexaad mar badan inaan ku dheeraado waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo waqtiga qaaliga aad soo bixiseen ka samadoon ahaan waxay naga go-an intii karaanka iyaga inaan barnaamijyada noocaana oo kala duwan aanu qabanno Samadoon Leadership Forum waa mid ka mid ah forumyada ay Samadoon ay qabato forumyo kala jira oo aanu qabanno qaarkood ay focus ka saarayaan arrimaha dhalinyarada qaarkood ay focus ka saarayaan arrimaha haweenka qaarkoodna issue-ga mar walba taagan oo dalkan u baahan yahay inuu ka doodo lagana yaabo intaas oo forum aan sheegnaysa si uga duwan yihiin bay ka hadlaan waxa kaloo jiro barnaamij kale aan qabanno oo aanu rajaynayno ay ka mid yihiin workshopyo seminaaro trainino iyo professional diploma oo bulshada Soomaaliyeed aan runtii hada jeer ku wacyigelino ujeedkuna uu yahay si lagu gaari lahaa dal Ramadan oo xasiloon iyo umad horumarsan intaan dhammaanteen wada rabno waxay tahay qof kastaba wuxuu rajaynayaa oo jecel yahay inuu horumar gaaro nabad ku noolaado reerkiisu ay nabad ku noolaadaan mustaqbal fiican iyo horumar fiican u gaaro taana waxay ku imaan kartaa inaan gacmaha isqabsano waxayna u dhaxeeya khilaafaadka runtii isfaham waaga muddo soo jiitimayna inaanu xallisano annagoo Soomaaliya wada hadalno miiniskii iyo wadooyinkii loo baahnayna haddaan naqaano inaan balay garayno aan ku dabaqno noloshayna
haddaanan aqoonina inaanu baranno samadoonna waxay u taagan tahay inay arrintaasi fasiliteegarayso mar walba waxay keenaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeed oo islaamnahay arrintan wuxuu ka iftiimi karaa mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin aad iyo aad aan ku mahadcelinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.